Rooble ayaa laga soo saaray filla Soomaaliya iyadoo amar culus la duldhigay. Ra'iisul wasaarihii xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa laga soo saaray hoygii uu ka deganaa filla Soomaaliya iyadoo haatan dibad joog uu ka noqday siyaasadda Soomaaliyeed waxayna aan ka hayn dowladda. Arrinkaasi waxay aad u sahlaysaa baaritaano culculus oo la doonayay Rooble in lagu sameeyo iyadoo ay ka hor istaagaysay xasaanadda xilka ra'iisul wasaaraha uu ka hayay dowladda. Haatan Rooble si fudud ayaa lagu heli karaa waxaana sahlanaanaysa in la soo istaajiyo maxkamadda halkaasina laga bilaabo garmaqalka ama dhageysiga dacwadaha Professor Cabdiwahaab iyo sidoo kale kiiska Ikraan Tahliil oo laga furayo maxkamadda ciidamada qalabka sida. Waxaana jira amar culus oo Rooble la duldhigay kaasi oo ku qotomay inuusan ka bixi karin gudaha dalka ilaa laga xalinayo kiisaskani iyadoo la doonayo Rooble in uu ka soo garbaxo kiiska dacwadda Professor Cabdiwahaab iyo sidoo kale kan Ikraan Tahliil oo ah midka ugu culus ee uu wajahayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Warar qarsoodi ayaa waxay sheegayeen in Rooble uu quudareynayo inuu isaga baxo gudaha dalka uuna u baxsado dhanka Imaaraadka Carabta halkaasi oo magangelyo buuxda uu ka helayo. Imaaraadka Carabta ayuuna la lahaa muddooyinkii u dambeeyay xulafo siyaasadeed iyadoo ay jirtay awaamiir waaweyn oo dalkaasi laga soo siinayay oo si toos ah ugu dhaqaaqayay Rooble. Fahad Yaasiin ayaa waxa uu xusay in dowladda shisheeye ay ku lug lahaayeen kiiska Ikraan Tahliil. Falanqeeyaasha ayaana waxay u badinayaan maadaama Fahad uusan carabka ku dhufan kana gaabsaday dowladda shisheeye in uu magacaabo in Imaaraadka ay tahay midda sida rasmiga uga dambeysay kiiska Ikraan kuna lug lahayd. Imaaraadka Carabta ayaa dagaal xoogan waxa ay kula jireen dowladdii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyaga oo garab xoogan siinayay mucaaradkii ka soo horjeeday Farmaajo iyo kooxdiisa. Waxaana ugu weynaa muddooyinkii u dambeeyay oo aad ula dagaalay dowladdii Farmaajo Rooble oo isagu loo soo adeegsaday inuu si adag ula xifaaltamo Rooble iyo Fahad Yaasiin. Dhaqaalaha ugu badan ee dagaalkaasi waxaa bixinaysay dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta. Mahad Salaad iyo sidoo kale Rooble ayaana ahaa xubnaha la adeegsanayay. Madaxweyne Xasan Sheikh, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale oo ka tirsanaa mucaaradka ayaa sidoo kale laga soo fangareynayay dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta. Ujeedka ugu weyn ee iskugu duubnaayeen ayaana ahayd in meesha laga saaro dowladdii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo iyadu ahayd mid aan gorgortan ka gelin arrimaha siyaasadeed ee dalka iyadoo ilaalinaysa qabka iyo sharafka Soomaaliyeed shacabkana aan u soo qaadeen wax aysan dan ugu jirin waxayna ilaalinayeen qarannimada Soomaaliyeed. Arrinkaasi aad ayay u dhibaysay dowladaha shisheeye ee danaha shakhsiga ah amaba iyagu ka lahaa dalka Soomaaliyeed dana gaar ah. Imaaraadka ayaana ugu horreeyay dowladihii Farmaajo kula culoobay arrinkaasi. Kenya ayaa sidoo kale qayb ka ahayd iyadoo Kenyaatiga aad ay u necbanaayeen Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu soo laabtana ay oga dhignayd burbur horle oo soo wajihi lahaa dowladdaasi dalka Kenya. Intii uu joogana waxaa xusid mudan sidii uu hoos ugu dhacay dhaqaalaha dalkaasi iyadoo Farmaajo uu ka joojiyay qaadkii ka iman jiray dalkaasi Kenya. Rooble haatan amarka culus ee la duldhigay oo ah inuusan ka bixi karin dalka ayaa ah midka ugu saameynta badan ee uu wajahayo. Waxaana arrinkan ay suuragelin kartaa ayaa la leeyahay maxkamadda in la soo taago iyadoo laga dhageysanayo garmaqalka laba dacwadood oo Rooble loo haysto. Kiiska ugu culus ayaana ah midka Ikraan Tahliil sidoo kale Professor Cabdiwahaab oo isagu tabanaya in Rooble uu ku sameeyay isku day dil isagoo ku sugan dalkaasi Kenya ayaa waxa uu ballan qaaday inuu dacwad ka furi doono gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Sweden. Professor Cabdiwahaab ayaa isku aadaadistay cadeemo fara badan oo kiiskaasi ku aadan iyadoo Rooble uu ku lug yeeshay balse waxa uu Rooble siiyay fursad ah inuu cafis weydiisto iyadoo uu tilmaamay haddii sidaasi uu sameeyo inuu la laaban doono dacwadda uu sheegay inuu ka gudbinayo ra'iisul wasaarihii xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Kiiska isagu aan marnaba lala laaban karin aadkana u culus ee uu wajahaya Rooble murugta fara badanna ku haya keenayna amarka ah inuusan dalka ka bixin waa kan Ikraan Tahliil. Ikraan Tahliil Faarax ayaa 26 Juun ee sanadkii hore la waayay iyadoo nabad sugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo xilligaasi uu hayay Fahad Yaasiin ay sheegeen xog ku aadan in Al-Shabaab ay dileen. Kadib buuq siyaasadeed oo dhashay waxaa jirtay xog kale oo nabad sugidda ay doonaysay inay la wadaagaan laamaha amniga iyo cidda ay qusayso
waxaana jirtay in xogtaasi inay u gudbiyaan uu ka hor istaagay Rooble. Golaha Amniga Qaranka ayuu sheegay Fahad Yaasiin xog dhammaystiran oo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil, cadeynaysana inuu lug ku lahaa Rooble uu ka horjeedin lahaa, balse Rooble arrinkaasi uu ka hor istaagay. Haatan kooxdii hore ee Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa iyagu wada qorshe Rooble lagu geynayo xabsiga iyada oo dacwadiisa laga furayo maxkamadda, waxayna u gudbinayaan maxkamadda ciidamada qalabka sida cadeymihii Fahad Yaasiin uu sheegay inuu gacanta ku hayay oo ku lug lahaanshaha kiiska Ikraan Tahliil Rooble iyagu cadeynayay. Arrinkaasi haddii ay dhacdo, Rooble waxa uu wajihi doonaa wejigabax iyo ceeb fara badan oo ka soo gaaraysa sida uu u wajahay kiiska Ikraan Tahliil oo isagu ahaa mid siyaasadeysan, la doonayeyna in lagu wiiqo tayadii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo xilligii Fahad gaartay meeshii ugu sarreysay tan iyo burburkii, iyo sidoo kale sumcadda madaxweyne Farmaajo, midda Fahad iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dowladaha shisheeye cadowga ku ah Soomaaliya ayaana doonayay inay hoos u dhigaan sumcadda Soomaaliyeed iyo midda sirdoon oo iyagu sare u soo kacday sidii uu xilka u qabtay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo.